musharax madaxweyne Abshir Feero ayaa maanta ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan xaaladda khilaafka ku saleysan ee u dhaxaysa madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Roble. war qoraal ah uu soo saaray Abshir Feero waxa uu ku sheegay in ay tahay wax la cambaareeyay sidoo kalena uu aad ugu xun yahay qoraalkii ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ee ku aadanaa inuu shaqadiisa sii wato agaasimaha hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA Fahad Yaasiin kadib markii warqad shaqada loogu joojinayo ay ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya taasina madaxweyne Farmaajo uu kaga jawaabayay qoraalkan. musharax madaxweyne Abshir Feero ayaana qoraalka uu soo saaray madaxweyne Farmaajo waxa uu ku tilmaamay wax laga xumaado sidoo kalena ay tahay wax ka fog cadaaladda. Abshir Feero oo hadalkiisa sii wato waxa uu yiri madaxweyne Farmaajo hore uma uusan hadlin kiiska ku saabsan Ikraan Tahliil oo la afduubtay sidoo kalena la sheegay in la dilay iyo sidoo kale dhalinyarada lagu leeyahay ilaa hadda dalka Eritrea. waxa uuna ku tilmaamay qoraalka madaxweyne Farmaajo Abshir Feero inuu yahay mid si kala fogeynaya ummadda Soomaaliyeed. qoraalka Abshir Feero waxa sidoo kale kamid ahaa in la taageero ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaare Roble. waxa uuna bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay Abshir Feero in la garab istaago ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Abshir Feero waxa uu sidoo kale madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ba ugu yeeray in arrintan ay tahay mid ummadda Soomaaliyeed ay qusaydo sidoo kalena laga doonayo halka ay wax ku dambeeyaan in labadooduba ay ka soo hadlaan. Maxamed Cismaan Daahiye, Somali Cable, Muqdisho.